gudoomiyaha guddida kaambeynka beelaha walbari ee gobolka Tuulir Maxamed Axmed Jaamac iyo sidoo kale Saacad Maxamed Sheekh Ismaan Nuur oo ahaan jiray xogayihii fulinta dawladda hoose ee degmada Burco kana mid ah siyaasiyiinta xisbiga maxaafidka ee Kulmiye ayaa shir jirayd ay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuulir waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen inay gabi ahaanba iska casileen xubinnimadii xisbiga maxaafidka ee Kulmiye oo ay ka tirsanaan jireen mas'uuliyiintani waana kuwan gudoomiyaha guddidaasi Maxamed Axmed Jaamac iyo sidoo kale Saacad Maxamed Sheekh Ismaan Nuur oo ka hadlaya arrimahaasi anigoo gudoomiyihii guddida kaambeynka awal bari siyaasadii awal bari ee gobolka Togdheer guddida kaambeynka ee awal bari waxa la sameeyay bishii 8aad ee maxaan ku dhahay 2016 waxa dhaqan gashay bishii 9aad 5teedii waxaana sameeyay gudoomiyaha xisbiga Kulmiyahana musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi guddidaasi waxay shaqeynaysay muddo 13 bilood waxa dhacay markii ay 5 bilood shaqeynaysay ayaa waxa gobolka yimi baro saabka gobolkan oo ah ninka la yiraahdo Ramaax ayaan caawa halkan ka shaacinaya waxyeelada uu u geystay xisbigii Kulmiye ee uu ka tirsanaa gaabkii u xidhnaa ee xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer uu dumay gaabkaasi uu dumay anigoo gudoomiyihii guddida kaambeynka ee beesha awal bari laga bilaabo caawa oo ay tahay bisha Oktoobar 20 waxaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga Kulmiye waana ka baxay xisbiga oo ay bishu tahay 20 Oktoobar maalin Jimcaha waxaan halkan ku shaacinayaa anigoo ah Saacad Maxamed Sheekh Ismaan Nuur ahaana kaambeynarada waaweynaa ee ka hawlgali jiray gobolkan kuna soo saaray Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waqtigii 2010 muddada ilaa intaas ahna ka tirsanaa taageerayaasha xisbiga Kulmiye iyo odayaasha deegaanka kaambeynka waxaan u sheegayaa xisbi xaflad baa lagu galaa waxaan laga baxaa press conference shir jiray saaxiibadeedii Kulmiye taageerada iyo wada shaqayntu naga dhaxaysay waxaan u hambalyeeyaa inaan ka baxay xisbiga wax taageera iyo wax hadara waxaan u mahadnaqayaa intii aan soo wada shaqaynay nimankaan saaxiibada nahay madaxweynaha dalka oo si wanaagsan wax qabadkiisa qarin maayo waxna qabtay wixii ka dhimanna cidii Ilaahay u qoray baa qabanaysa waxa xumaaday ee xisbiga ka xumaadayna waa laba isbedelo waqtigii Silaayo campaigner leader oo siyaasi oo isag wax wato oo danihiisa leh buu ahaa waqtigan dambana xagga Muuse waxba kama xumaane ragii hoos joogay ayaa xisbiga suldaareeyay subxaana rabbika wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkan u galnaa anaga soo sheegi doona saasaan u shaacinaya isku soo wada xooriyo maalmihii ugu dambeeyay waxay soo tarayay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale taageerayaasha kala duwan ee ka digaroganaya xisbiga maxaafidka ee Kulmiye kuna biiraya asxaabta mucaaradka Soomaaliland balse mas'uuliyiintan ilaa hadda ma shaacin xisbiga ay u biiri doonaan waa Khalid Bakeele fogaana rag xorta Star TV